Sidee ayay warbaahinta Asmara iyo Addis Ababa uga hadleen socdaalkii wafdiga Eritreyaanka ee Somalilan yimi? Warbaahinta dowladda Itoobiya iyo weliba Eritrea ayaa warbixino xiise leh ka qoray socdaalkii wasiirka arrimaha dibadda dalka Eritrea iyo weliba la taliyaha madaxtooyada Cismaan Saalax iyo Yamane Gabre ay ku joogeen saddexda cisho ay kaga soo laabteen maanta magaalada Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Somalilan. Wakaaladaha wararka ee maamulaan dowladaha Itoobiya iyo Eritrea ayaa warbixino kooban ka diyaariyay socdaalkaasi isaga ah. Wakaaladda wararka ee dalkaasi Eritrea Shebit oo ay dowladda Eritrea maamusha ayaa qortay warbixin ay ciwaan uga dhigtay wafdi sare oo Eritreyaan ah oo wada hadallo la yeeshay madaxda kala duwan ee Somalilan. Shebit waxay tidhi wafdi sare oo Eritreyaan ah oo ka kooban Cismaan Saalax wasiirka arrimaha dibadda iyo weliba la taliyaha madaxtooyada Yamane Gabre ayaa ugu yaraan 3 kulan la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Somalilan oo laga wada hadlay xoojinta arrimaha lagu soo bandhigay kulankii koobaad. Wakaaladda wararka ee Eritrea waxay intaasi raacisay wafdiga waxa kale oo ay la kulmeen wasiirada khaarijiga, arrimaha gudaha, maaliyadda iyo weliba xubnaha guurtida iyo wakiilada. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa wafdigan u sameeyay qada sharaf. Wafdiga Eritrea ayaa 18 Maarch Somalilan ku tagay socdaal shaqo oo rasmi ah ayaa lagu yiri warbixintaasi. Wakaaladda wararka Itoobiya waxay warbixinteeda ku bilowday wafdi Eritreyaan ah oo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Cismaan Saalax iyo weliba la taliyaha madaxtooyada Yamane Gabre ayaa madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi kulan kula yeeshay xafiiskiisa. Waxay kale oo intaasi raacisay kadib kulankaasi Cismaan Saalax ayaa sheegay kulanku ahaa mid xiise leh oo muhiim u ah, waxaana uu sheegay in wafdigu uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi siiyay warbixino ku saabsan siyaasadda, arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo weliba xaaladda Somalilan. Cismaan ayaa wakaaladdu sheegtay inuu ammaanay nabadda ka aslaxday gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan Itoobiya iyo Eritrea. soo gudbidona balse marka hore waxaan idinka codsanaynaa fadlan inaad share gareysaan sina like na saartaan subscribe na noo saartaan youtube keenan Hargeysa.